ما شاء الله waxaan rabaa qiso cajiib badan inaan la wadaago qisadaas ku saabsan ictimaad cala Allah qofka oo Ilaahay ictimaado ama Ilaahay ku kalsoonaado muxuu ka faa'iideeyaa muxuuna ka helayaa qofka hadduu Ilaahay isku xiro qiso ayaa jirtay waxaa jiri jiray laba nin oo indhoolayaal ah waxay fariisteen wadada soo marto Jacfar Zubaydatan العباسية أيضا يقولين جعفر أنا أهيد قف معرتي كرم بدنو أد ضدك ولا خالصو مركا وددي سو مرجستي فريستي مركا متكستا مركا هذا البوير مركا أيضا وين مخلصة وين قرنيسة مد وحودا اللهم ارزقني من فضلك إلهو يقول رزاق فضل جاي ديراتك من نوع حيري اللهم ارزقني من فضل جعفر يا إلهه يقول رزاق وحيقولسي فضل جعفر مركب جعفر وين مخلصي وين أركيس لبضني وحيث ما يسمرك كي إلهي سبحانه وتعالى فضل جيس وحكوي ديستي ويرى اللهم ارزقني من فضلك وحيقصو ديبتي لبدرهم كي أيضا فضل جيد وحكوي ديستو يقول اللهم ارزقني من فضل جعفر waxay u soo dhiibtay hal digaagad oo la shiilay oo 10 diinaar ay soo gelisay kana 2 dirhan u soo dhiibtay kana neef hal digaagad oo haddana ay ku dhex jirtay ku soo qarisay 10 dinaanir ama 10 dirhan ay u soo dhiibtay marka kan maskiinka oo labada way indhalaayeen midka indhaha la oo labada dirhan la siiyay ayaa kan la siiyay doorada uu ka gadi jiray